suuqaas qofku markii hore markuu rabo suuqaas inuu ka ganacsado oo uu lacag gashado wuxuu u tagaa dad loo yaqaano brokers ama magacyo kala duwan ay leeyihiin shirkado waxa jira kala duwan bangiya jira qof dalaal caadiya ha jira oo iyagu awood u leh suuqaas in qofku ka ganacsado inay u sahlaan waa suuqan bakaaraha kala tusaalahan suuqa internationalka oo lacagahaas qalad laakiin adigu suuqi bakaaraha soo toos uma gali kartid waa inaad soo martaa qof ku dhaxeeya adiga iyo qoladaas suuqa qofkaas sida masaajidkan oo kale asagu wuxuu leeyahay awood iyo shati tusaalahan uu kuugu saamixi karo inaad suuqan adigu ka qaraabato qofkaas aad u tagay waxaad leedahay waxaan rabaa inaan ganacsado suuqan marka lacagtaad ku ganacsanee ma ahan suuq aad $20 iyo $100 inta la soo ordo aad isaga ganacsan karta ma ahayn nisaab go-an iyo meel ay ka bilaabataa jirta lacagtaad ku ganacsan karto qofkii waa lacag doon inuu lacag helo rabaa mana gaarsiisna wixii lagu ganacsan karay muxuu sameynaa qofkaanu u tagaa wuxuu leeyahay waxaan rabaa in aan suuqan ka ganacsado oo la ii ogolaado inaan suuqa galo wuxuu leeyahay waa sahlanta meeqa lacagaad haydaa wuxuu leeyahay $1,000 aan haya wuxuu leeyahay waxaan kuu furaa account aniga meeshaydan buildingkan masaajidka dhismahan oo kale masaajidku isagu leeyahay wuxuu leeyahay meeshaan dukaan yar kaaga sameynaa account aan kuu fura aniga waa la yaqaan awoodad aan kuu siinaa inaad suuqan dhex geli karto ganacsan karto oo lacagaha sarrifi karto kan yani forexiska haddii uu wahmi yahay oo wax lacagoo shaqaynayana ba aynan jirinna oo arqaam qofka la tusaayo keliya un meesha ay taallo sida la tilmaamayna khiyaanadu waaba kasii weyn tahay marka lacaga shaqaynaa ay jiraan ayuu intaas oo wuxuu qabaa maxduur ama yacni xaaraan wujuuh lagu xarimi kara ah sharcan loogu xarimi kara ah ayuu qabaa markaan soo koobo laba noocoo riba ah waa ku jirtaa oo riba alqardi iyo riba dayn oo midda riba nasii'ada aan u jeedo qabdi maba jiro guddoon ma jiro waxaad guddoomayso oo sharcan ama xaqiiqa ha ahaado ama xukmi ha noqdo midna ma jiro ta kale waxa ay iyadana ay tahay waxyaabahan marka uu ka ribxaayo oo uunan weli si toos oo si buuxdo uunan u milkinin qaybahaasaa yaa ka muuqdo waajib weeye in dadka loo naseexeeyo la yidhaahdo xoolihiina meel xalaalana ka kasbada xadiidna waxaa ku jirta nebiga sala allahu calayhi wasalam rabbigay hortiisa markuu taagan yahay cagaha dhulka ka qaadi maayo 4 su-aalood ilaa uu ka jawaabo waxaa ku jirta maalka xaggee ka keenta xaggee ku bixisa su-aal kaliya oo lagu weydiiyana waxa adduunka joogo o dhan lama dhaafsan karo marka xoolaha ka taxadareen dadka wax xalaal ha la raadsado faa'iida haddii lagu siiyo waxaa laga yaabaa waxaa lagu siinaya nin hebel xoolihiisa inuu yahay ee aysan ahayn wax jiraba aysan ahayn haddii sida aan hadda culimmadu ay sheegaysa waxay tahayna waxyaalo wahmiyana sharcigu wahmi ma ogolo wuxuu ogol yahay wax waadix oo lagu kala qaato aan u nasteexaynayn muslimkaan u nasteexaynayn markii hore maxaa sidaan kale nadwa looga qaba waayay waxaan islayn dadkaana waa dad muslim meeshan gaale ma joogto dad 100% muslim aan ku naqaan wadaadadana nin kastoo la weydiiyay laba iskhilaaftay kuma aanan ogeyn magaalada waa wada sheegayeen intaasaa ku filan aan islahayn shay walbana xajbigiisa lagu qaabilaa haddaan aragnay dadan u aabayeelin inay jiraan balqayla dhaanta inaan kor u qaadno oo culayska jira culays u munaasiba qaabilinno saasay ku timi